السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan jeclahay hadalkayga inaan ku bilaabo sheeko yar oo kaftan ah. Hadda ka hor anigoo jooga school oo aan cashir ka bixinayo mowduuc yar oo dhiirigelin ah arday aan wax u sheegayo. Waan markaa mowduucii dhammeeyay waxaan arkay arday meel ku murugsan oo meel gooni fadhiya. Ardaygii aan u tagay niyadaan u dhisay xoogaan la sheekaystay. Waxaan ku dhiirigeliyay inuusan niyad jabin. Markii aan xoogaa dhiirigeliyay wuxuu iigu jawaabay wuxuu dhahay macallin mar walbaba oo aan isdhaabo furihiin guusha waad heshay qofba qufulkii sii bedesho dhahay qufulkii guusha waa la iga bedeshaa. Maanta waxaan rabaa walaalayaal inaan wax yar idin kala wadaago mowduuc aad u quseeyo nolosheena. Mowduuc walaalayaal laf dhabar u noqon kara guul walba aynu ku tilaabsan doono. Mowduuc walaalayaal wax badan inoo kala fahamsiin doona waxa guusha ay tahay iyo waxa ay guul darradu tahay. mowduucan maanta idin wada walaalayaal waxa weeyaan isdhiibida. Dhamaanteen waxaynu leenahay waxyaabo aan Allah subhanahu wa ta'ala ka doonayno inuu inoo hirgeliyo, inuu riyooyinkeena inoo rumeeyo, inuu waxbarashada inoo fududeeyo, inuu ganacsiga inoo barakeeyo, inuu awlaad saalixa inoo siiyo iyo waxyaabo badan oo la mid ah. Laakiin markii aan in muddo ah aan alla sugno, markii aan in muddo ah waxun isku dayno waxna inoo hagaagi waayaan, markii aan dhowr fiilo isku xirno waxna inoo xirmi waayaan ayaa waxa inagu dhasha walwal, waxa inagu dhasha walbahaar, waxaanu inagu dhasha murugo, cabsi, self doubt, waxyaabo badan, waxa inagu dhasha su'aalo fara badan. waxaynu isweydiinaa aniga maxaan waxbarashada heer uga gaari la'sanahay, aniga maxaan awlaad u dhali la'sanahay, aniga maxaan su'aasheena ayaa badata, samirkeenana waa uu yaraadaa. laakiin ha isdhiibin, noqo qof samir leh, noqo qof dulqaad leh, ha noqonin qof col hortiisa jaba. waxaa la yiraahdaa hadba inta uu dulqaadkaagu la eg yahay ay isdhiibitaankaaguna la eg yahay. aan kugu soo celiyo, hadba inta uu dulqaadkaagu la eg yahay, inta uu samirkaagu la eg yahay ayay isdhiibitaankaaguna la eg yahay. isdhiibadu inta ay kuu jirto ayay guushuna kuu jirtaa. weli ma isweydiisa sababta dadka guuleystay they keep on winning while the losers keep on losing? ma isweydiisa sababta dadka guuleystay ee u sii guuleystaan halka kuwa guul dareystana ay mar walba u guul dareystaan? jawaabtu waxa weeyaan isdhiibida. waxaad arkaysaa qof aad waxbarashada isla bilowdeen oo maanta sanadkii saddexaad sanadkii afraad jaamacadda ku sii jiro, adigana aad dhowr sano aad dib u dhacday. ha isdhiibin, hore u soco. ogow Allah subhanahu wa ta'ala inooma waayin wax walba aynu weydiisanayno, inooma waayin inuu imtixaanka inagu baasiyo, inooma waayin inuu nolosha inoo kala kiciyo, inooma waayin dhib walba oo inagu hareereysan inuu inaga dulqaado. laakiin wuxuu nala rabaa inaynu arday u noqono nolosha qeybaheeda kala duwan. waxaa la yiraahdaa waxaa jira cashiro kaliya laga barto guul darrada oo aan laga helin guusha. waxaa jiro cashiro aad ka heli karto kaliya nolosha salkeeda hoose, meesha ugu hooseyso aadan ka helinin nolosha meesheeda ugu sareyso. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo qisadii Nabi Daa'ud alayhi salaam. Nabi Daa'ud wuxuu ahaa nabi Allah subhanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay kitaabka Zabuur. wuxuu soo noqday xaakim, wuxuu soo noqday qaa'id, wuxuu soo noqday nin mujtamaciisu ay aad u jeclaayeen. laakiin noloshiisa sidaa kuma bilaabanin. Nabi Daa'ud wuxuu ka soo jeeday qoys faqiir ah, waxba aanan haysanin, masaakiin ah. wuxuu ahaa ari raac, wuxuu ahaa qof tabar yar. maalin isagoo arigiisii la jooga baa waxaa dagaal soo qaaday gaaladii. gaalada waxaa hogaaminaya nin la yiraahdo Jaaluut. markii dagaalku ay soo qaadeen gaalada, Jaaluut baa wuxuu dhahay yaa maanta isagoo kibir ula jeeda yaa mubaaraza igu soo bixi karo, yaa fool ka fool dagaal igu soo bixi karo. muslimiintu waa ay baqeen markay arkeen xoogiisa, dheerarkiisa, murqihiisa markay arkeen waa ay yara baqeen. ilaa heer qaa'idkii muslimiinta uu dhaho war yaa gaalkan qoorta ka soo gooya, yaa gaalka inaga dhiciya oo aan gabadheeda siiya. weli muslimiintu waa isfiirfiiriyeen, gadaal ayay u degeen ilaa wiilkii yaraa, wiilkii tabarta yaraa, wiilkii aan mujtamaca dhexdiisa ixtiraam aanan ku lahayn, wiilkii masaakiinka ahaa Nabi Daa'ud alayhi salaam uu gacanta ka taagay oo uu gaalkii u baxay soona dilay. markuu Nabi Daa'ud uu dilay gaalkii Jaaluut ahaa waxay u horseeday muslimiintu inay gaalada ka guuleystaan.
wuxuu hantay quluubtii reer bani Israa'iil qofkii shalay ahaa masaakiin qofkii shalay qoyska faqiirka ka soo jeeday ayaa wuxuu ku biiray qoyskii xukuumadda haye noloshuna sidaas ayay isku badbadashaa waxa laga yaabaa maanta walaalayaal inay duruufo kugu hareereysan yihiin inay noloshu kugu adag tahay inaadan lacag haysanin in ganacsigaaga uu hooseeyo in qofkii shalay aad shaqada isla bilowdeen maanta heer shaqada uu ka sii gaaray shaqada aad ka wada shaqeynaysan same job aad ka wada shaqeynaysan inuu heer ka gaaray adigana aad wali hoos taagan tahay laakiin ha isdhiibin horay u soco waxa la yiraahdaa tough situations don't last but tough people do haddii aad sidaada ku taagnaato oo aad dadaal un la imaato dadaalkaaga shalay aad laba jibaarto waxaan hubaa xaaladaadu inay isbedeli doonto waxa la yiraahdaa hal qof oo go'aan adag hal qof oo alle ku kalsoon hal qof oo dadaal la imaado dadaalkiisa laba jibaara hal qof oo walaalayaal dhabar adeeg la yimaado resilience ayaa wuxuu ka manfacaad badan yahay ka wax soo saar badan yahay kana fiican yahay 10,000 qof oo rajo un la soo taagan oo aanan ficil lahayn marka waxa inoo balan ah inaynu hore u socono noloshu sidoo wajiye badan bay ku soo hordhigi doontaa waxa lagaaga baahan yahay inaadan isdhiibin waa lagu xasdi doonaa waa laga soo horjeesan doonaa waa lagu isheeg beenlow baa lagu magacaabi doonaa carruurtaada la xasdaya ganacsigaaga waxa leeyahay sixir buu ku keenay saan buu wax ku keenay laakiin ha isdhiibin hore u soco insha Allah هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته